deegaanada u dhaxeeya degmooyinka Qandala, Caruula iyo isku shuban oo ah dhul baaxadiisu ballaaran tahay ayna ku nool yihiin kumanaan qoys oo xoolo dhaqato iyo danyar isugu jira. Waxaa laga soo sheegayaa inay soo food saartay xaalad biyo yaraan kadib markii uu jabay ceel biyood riiga ah oo inta badan dadka deegaanadaasi ay ka cabi jireen, qaybtoodna ay biyo dhaan ahaan u adeegsan jireen. ceelkan maalintii waxa cabba xoolaha, habeenkana waxa cabta baabuurta. dhibaatadan waxay ku tahay qofkii shaqadiisii baan habeen iyo maalin haddana waxa weeye inta ila joogtay waa soo jeeday habeen iyo maalinba. sababta waxa weeye wixii baa qorshe ku socdo oo maalintii magaalada waxba loo qorsheynayaa oo habeenkii baa cabaysa waa loo dhaamiyaa. maalintii waa xoolaha, xoolihii baa waxay kuwa soo guuray oo bari ka soo guuray oo xays raacay oo soo noqday oo deegaamadoodii ay aad lahayn oo man yihiin oo iska digay iyo kuwa deegaanka joogay. xaaladda marka halkaan haddaan si degdeg wax looga qaban oo ama ceelka bambada loo keenin waxay ku sugan tahay khatar. bulshooyinka ku nool tuulooyinkaasi kala duwan ee ka tirsan degmooyinka fogfog ee gobolka Bari waa kuwa qaba baahiyo kala duwan oo dhanka nolosha, marinka wadooyinka oo xun, marmarna ay u sii dheer tahay in kooxaha nabadiidka ah ay dhibaateeyaan dadka deegaanadaasi. meesha inta jidho oo gaarigu 6-5 saac ku mari lahaa 2 maalin iyo habeen buu maraa. caafimaadka xaqiisa qofkii jiranaayo laga qaado waxa laga arkaa gabdhihii ama dumarkii foosha inay jidka iskaga tiyaal lagu taadwayo dariiq xumada taasay keenaysaa. hadda ka hor meeshan inay soo galeen niman kooxaha nabadiidka iskaashi ay sameeyeen ciidamada Puntland iyo dadka deegaanku in lagaga cayriyay goobta hadda aan taagnahay inuu ku dhex maray dagaal laguna jabiyay dabayaqadooda ugu dambeysana la cadeeyay inay galeen buuraha shishe oo dhinaca cash ah. annaguna hadda ilaa 4 bilood 5 bilood inaanan goobtan iyo goobo u dhow ku arkin, dhulkuna uu sida nabad ku yahay. deegaanka Balididin waxaa ku yaala isbitaal muhiim ah oo ay dhismihiisa gacan ka geystay dowladda dhexe ee Soomaaliya, haqabtirana baahiyaha caafimaad ee deegaanadaasi, balse u baahan dhamaystirka adeegyo badan oo dhanka caafimaadka ah. baahida jirta oo ah raajo ma laha cusbitaalku, qolkii qaliinka ma laha, qolkii meydka ma laha, qolkeyd ma laha, booyad biyaha u keenta ma laha. booyada biyaha waa la gadaa, waxa weeye xitaa mar baa laga soo gadaa magaalada dhexdeeda markii biyo laga waayo waxa laga soo gadaa buq meel la yiraahdo baabuurkana wuxuu keenay ilaa $250. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.